muuqaalkii la yaabka lahaa ee uu soo jeediyey Sheekh Maxamed Cabdi Umul iyo khudbadii ka ilmaysiisay boqolaal Soomaaliyeed waxa nasiib darro ah oo waxa looga xumaadaa oo waxa looga xanuunsadaa ayadoo Ramadaan la joogo oo tobankii dambe la joogo oo cibaado iyo khayr in loo jihaysta la taagan yahay kuwa kuraasta ku dagaalamaya oo jiifada iyo meydka dalmayda iyo bakhtiga siduu nabigu ka cabiray sallallahu alayhi wa alihi wasallam adduunyada oo dhan buu nabigu wuxuu ka cabiray salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi orgi foolxun oo dhakan oo bakhti abu nabigu ka cabiray sallallahu alayhi wa sallam adduunka oo dhan waxa yaal orgigi bakhtiga aha ee dhukanaaye foosha xuma mijintiisii oo haddana caydhiin ah kuwa ku dagaalamaya ee haddana Ramadaan jooga ee tobankii dambe jooga ee halkaasi ay ka gashay wax laga naxawaa kuwa Ramadaan ayadoo la joogo kitaabka Ilaahay tabaaraka wa tacaala intay gacmaha saaraan dhaaranaya markay kitaabka ku dhaaranayaanna afartii jeebay laaluushka ay gashan lahaayeen waa u tolo yihiin codka yaad ka gadataa yaa ku lacag badan laaluushka seed ku qaadataa la'ana Allahu ar-rashi wal-murtashi ka bixinaya la'anadii ha ku dhacdo ka qaadanayana la'anadii ha ku dhacdo kitaab Ilaahay buu gacanta saarayaa dhaaranaya go'aanna waxa uu oo markaasi qalbigiisa ka go'an inuu laaluush qaado jeebabkiiba u tolan war ummad saasa seebay u guulaysaneen waa Ramadaan waxay ku mashquulsan yihiin xilligay cibaadaysan lahaayeen Ilaahay baryi lahaayeen ayay waxay ku jiraan hardan iyo looltan iyo dagaal iyo hebel iska dhici iyo hebel naac iyo nin jeclaysi baladugood kuwa ay waxa iska rab dhigtaa kuwa Ilaahay tabaaraka wa tacaala baytul maqdis ku xaraysan ee i'tikaafsan ee muraabiqiinta ee iyagoo laabtoodu bannaan tahay gacmahooduna eber yihiin ciidamadii Israa'iil hor taagan oo Ilaahay gurigiisa ka difaacaya bal adigu labada suura isgarab dhig bal labada suura isgarab dhig aaway dadna aakhiray aadeen dadna adduunyay aadeen abaalku inuu kala duwanaadana waa xaq markaas Ilaahay tabaaraka wa tacaala ha loo noqdo kitaabka rabbi tabaaraka wa tacaala in loo soo saaro miiska in lagu dhaarto beenna loogu dhaarto kadibna meesha lagaga dhaqaaqo xafiis madaxweyne iyo mid maxkamadeed iyo mid baarlamaan aan dib dambe loogu arkin maalika beenta lagu dhaaranayana lagu garaaco sacabka lagu garaaco maxaad u ihaanaysanaysaan Ilaahay kitaabkiisa tabaaraka wa tacaala maad meelihiina been ku dhaarataan maxaad kitaabka ka soo doonteen kuma dhaqantaan dastuur idin ma aha dawlad kuma maamushaan kuma kala baxdaan dasaatiirta reer galbeed iyo qawaaniin reer galbeed baa idin yaala maxaad kitaabka Ilaahay xaaladda iyada u ihaanaysanaysaan waa wax ajiib ah waa Ramadaan taqullah war Ilaahay baa loo socdaa war waa la geeriyoon war waad wareerteen sidaas daraadeed baa dhaartaasi beenta marka la galo sayi'aadkana laga dambaysiyo wixii halka maray oo dhan cimrigooda waa wareersan yihiin bal adigu fiiri cimrigiisa waa wareersan yahay wayna wareersan tahay midba bay u dhiibaysaa wareer buu u dhiibayaa tawbad male soo noqosho male kursi sii raadi helad la sii colow dagaal sii gal aafa sii jiid sii fogow ilaa marka dambe ay taadi ku timaado adoo meel xun qasanaya xagee laga raacay qufacday laakiin meel laga raacay ma ogid war Ilaahay ka baqa war tawbad keena war Ilaahay u laabta war xaaraanta ka fogaada war bisha iyo fursadda ka faa'iideysta war Ilaahay tabaaraka wa tacaala rahmaadkiisa iyo naxariista degaysa hoorsada oo Ilaahay u noqdo tabaaraka wa tacaala